السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa arkaynaa ninkii marxuumka ahaa oo afka intuu furtay waxyaalo badan oo la yaaba ku dhawaaqay yaa dhegeyso bal nanacda meesha la taagan yahay dawlad kale oo ciidan keensanaysa Soomaaliya ma jirto haye yaa war wuxuu ku hadlay war si socba dawladna weydiisatay oo dhahday ciidan baan keensanayaa Soomaaliya ma jirto sideedaba dama weydiisan ninkan xamalaynayaa armaajo lagu xiraa u malaynaya waxa lama socdo yaa dhegeyso bal wuxuu hadda inkiriyaa heshiiskan oo bishii hore ee waxaan dawlad ku sheegay soo saxeeyay aan ku bilownay Soomaaliya iyo waliba Masar ayaa goor dhaweeyda magaalada Qaahira ku kala saxeexday heshiis difaac kadib wadaxaajoodyo halkaasi uga socday oo ay hogaaminayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax al-Siisi heshiiskan ayaa ku soo beegmayay xilli Soomaaliya iyo waliba Itoobiya ay ka dhex taagan tahay xiisada ka dhalatay heshiis isfaham oo Itoobiya iyo Soomaaliland dhex maray dhawaan inkiraad meesha la taagay yaa ninkan waxa xarun soo malaynaa armaajo lagu xiraa yaa markii dan laga yeeshay armaajo laga soo furo malaynaa yaa baba dhegeyso wuxuu hadla ninkan la yaab kale haddaan dawlad kale u tagnay oo carbeed oo aan dhahnay iyagana war nacaawiyo waxaad nacaawinaysaan oo ay dhaheen waan nacaawinaynaa micnaheedu ma aha inaan dawlad kale ku duulayna ma aha micnaheedu ma aha inaan ciidamo ay leeyihiin intaan soo rarno Soomaaliya keenayna ma aha namay weydiisan annana ma weydiisan annagu waxaan u baahanahay taageero cidiina siinaysaan uga baahanay haday iyaguna siinayaan saaxiibadan horeyba waa wax badan waan isla qabanay diyaar baan u nahay hana siiyaan maanta dhowr iyo 10 diyaaradood oo masaarida leeyihiin waxay dhow yihiin airportka aadan cadde yaa marka ninkaas sida wax ka yihiin ninkan miskiinka yaa dadkiisa meelaha la